وانا soo dhaqaaqa wali xafiiskii markaan soo galay telefoon ii soo dhacay waa ka qabtay wuxuu yiri umuradu markay tashadeen waxa go'aan lagu gaaray bari 6 saac inaad dhaafin ugu waa qof bini aadana qofka ku qabanaya hadii alla ku roon yahay waxaan ku dileynaa markaas waxaan iri ilaahay adoomada ajasha waa ka qariye yaa ku sii awood aad u aad ku ogaat warkaas ka baxay go'aankaas ala kulli xaal wax la aqbali karo ma aha qof bini aadan inuu ku yiraahdo saacad hebel la dhimanaysa أنا ما مثلاً إلهي لما قدرين معناها قفك بنادك نفتي سكانت الربيع كوجرته مالتي سكمان هور مري وكمان الدوا مري أنا قصوي بدن وحنون بدن مركا يقولون بري لحسة عمدا في سيد ومركا سان كلها يا هاي مدة كمان صوب عند دارتي عدو يدقن ما أنت وحكي قدام يهرت مسودك قان كي يقولوا وحاي إنسان وجوري لهاي maalin bashay ayaan idaacada baawurka inta saaran darawalka ira meelabaleeygi marka intaas waxaan ka shaqeynay sidaan uga bixi lahay meesha markii hore kaligay inaan baxan go'aansaday haddana kadib weela qaraaraatay inaan xaruntii warbaahinta joogay oo dhan inta ka tago oo gacantooda gasho ee iyagu dadka ku mari habaabiya oo hadii alaga ummadii ay ku sii lubayaan oo ay marka waxaan isiraa at least dhibaatada idaacadda uu keeni doonto ummadda ka qabo idaacadda u gacan gashay dhibaatada ay keeni doonto ummadda ka qabo marka maalintaas waxa ka dambeeyay xarunta idaacadda deganeedna kama soo bixin ilaa aan ka guur rucbiga iyo cabsida iyo cid kastoo albaabka kugu soo garaacda iyo shaqartii yeertay iyo waa dareemi kartaa rag aad dhex degan tahay kuuna hanjabay saacaday rabaana kuu soo geli karo cid haddii alla guro waardiyaha hore kuu fadhidaa aysan waa dareemi kartaa sababtoo ah habeenada ka mida waxaa dhacay war idaacad kale ka baxay idaacaddeena waa ka baxay laakiin sida loo sheegay ka duwan ayay maqleen wayna soo aaday markii haddii alla ku roon yahay waardiyaal faramarana annaga hoos noo joogo waardiyaasheedii ma ayla soo hadlina waxa ay soo wacda gabar daris nala aheedoo guri naga soo horjeeda degan waxay tiri saraakiil shabaab aha soo galay iska ilaali guriyaashii ayagana ma taqaana cid wargelis nimankaanu soo galaya markii la arka meeshii qaara guri 4 dabaqa waa qaara xataa dariishada inta ka baxeen ay fiila laalaada qabsadeen qaar mid miis hoos gala war adigu waxa dhacday tuuji mas'uuliyad hadduu qof qariyo ka war yaa qof bini aadan oo tuujigaas u qariyo anigu haddii alla ku roonay xafiiskayga inta hoos ka xirtay aan iraado kii ku soo gala haddii alla ku roon yahay isla dhinta basoolad inta gacanta ku qabsa marka waa dareemi kartaa cabsida heerkay gaarsiisan tahay habeenkii kale noogu dareed waxay noo keeneen cod oo amiirkii hore Axmed Cabdi Gude barnaamijka habeenkii siyaasadda iyo falaqaynta looga hadlo ayay dhahan waa in caawa lagu sii daaya barnaamijkaas barnaamijka waraysiyada siyaasadda iyo xaaladda iyo wuxuu ka hadlayaa haddii alla ku roon yahay jihaadka ay wadaan iyo xaqa aan wadno iyo murtadiinta la dagaalamaynayo waa marka ay bilaabi rabaan dagaalka ay u bixiyeen hayatul muctadiin marka wuxuu ku baraarujinayaa raggiis oo haddii alla ku roon yahay dagaal lagu soo afjaraya hal qaado uu leeyahay nimanka markaas dawladdii Shariif oo bilaabaha jirta waxayna dhaheen
barnaamijkaasna dee ilaa 7 waraysi iyo lagu soo qaadan jiro barnaamij saacad iyo bar socdo waxay dhaheen barnaamijkan oo aan waxba ka jirin waa inuu noo baxaa caawa amiirka warkiisa